السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك ميل والبو أجوكتين كل أنتم بخير. ما أنتم حيلت شوقا أبوانك دقدير الصوماليات أبوان دعسو وحينوغا ورمي دونا بلاد شرفتي وكوكو ليستي لابد كون إلا واتني أفركا إيوه ماويلا ير أو كسابسن ماويلا تحير أو كسابسن ماويلا ذا عرورتا أما هاس يراني إرادة كسودو أبوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان با أمد الصوماليات iyo bulshada islaamka ahba sida walaalkeen inoo sheegay kul caam wa antum bikhair ciid wanaagsan meel kasto joogtiin. inta kadib uu mahadsan yahay walaalkeen Cabdullaahi Jabuuti oo aynu maantay aan kulanay kulankii inoogu horeeyna ma ahan kii inoogu dambeeyna ma noqon doono insha Allah. dabcan bilad sharaftani way ahaaday waxayna kamid tahay mid kamida kuwii aan ku guuleysanay. waxaan isleeyahay waa mid u sugnaatay taageerayaashayda iyo bulshada Soomaaliyeed iyo inkasta dadka suugaanta jecel aan u hibeynayno. wayna ku mahadsan yihiin intii ii garatay ama ii codaysay ama ii taageertay ama waxaan laga dareemayaa sidii dadku u jecel yihiin suugaanta bulshada Soomaaliyeed inay tahay dad suugaaneed ama suugaanta jecel qaasatan maaragtay suugaanteedu waliba inay si xiiseeyaan ay muuqato. dabcan waxaan la shaqeeyay naadiyaal kala duwan oo fanka ka shaqeeyo kuwa ajaanib ah iyo kuwa Soomaaliyeed. taas ayaana la dhihi karaa ama waxyaabihii sababay kamid ahay inaan ku guuleysano abaalmarintan. insha Allah waana rajaynaynaa heerkan iyo heer ka sii duwan. bulshada Soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan idin leenahay mar kaleeto ciid wanaagsan. waxay noo sheegtaa maanta bal maadaama aan kanaalkeenan aad ka soo muuqatay dhowr jeer oo aadna ay ku kasayaan abwaan tix yar ama hees yar oo maaweelada caruurta ah mise waxa inoogu tala gashay. bismillah. waa mahadsan tahay wariye. dabcan caruurnimadu waxa weeyaan qayb kamid ah qofka nolosha qofka barbaarinta maxay ahaatay suugaantuna way la falgashaa barbaarinta qofka way la falgashaa yaraanta qofka ilaa uu ka korayo marxalada kala duwan oo marayo. waxa jiri jiray heeso howleedyo ama heeso caruureedyo caruurta lagu maaweeli jiray si maskaxda caruurta loo dhiso ama loo kobciyo garaadkooda iyo caqligooda kor loogu qaado. hooyooyinkii hore waxay ahaayeen kuwa ka fikiro afka iyo dhaqanka iyo maskaxda ubadka kuwa ka fikiro oo ku barbaariya ayay ahaayeen. tusaale yar haddii aynu maaragtay aan idila wadaagno heeso howleedyadii hore caruurta waxaa kamid ahay hobeya hobey hobeya hobey hobalayeya hawalan hawala loobin hawaayin wardheere aabbo hawaayin waxsiise hooyo hawaayin walaale dhowra ilma adeer kula hobsheeya adeera ku daadaheeya ilaah baa laga helaye hawaayin wixii wax ku ah halkaaga lagama waayo hashaada lagama qaato halkaad xalanoo xogaysay halkaad xalay ladiska weysay malaa'igi kuu salaaxday lagu mari gacanta Maxamed. waxa kaloo kamid ahay maaragtay heesi howleedyadii horeeto oo maskaxda caruurta lagu kobcin jiray hadee iskool bay u ahaaday ama sana madrasa ay hooyadu ubadka u ahaaday meesha afka ay ka bartaan dhaqanka ka bartaan xigmadda ay ka bartaan maahmaayada ay ka bartaan murtida ay ka bartaan ay hooyadu ay ahaaday. waxa kamid ahay maaragtay guuguun gumasaar laanshow xalalaabi xabagay magaca bilo janno oo barrow beerta dhowr maaya tan maahe teeda kale ay ku timi ay ku taal tilaabso taraqde. waxa kamid ahay tifka kow tifka labo walakatiin katitiin abootoy idaacaday idalagaday la gidi waayay tay ku timi tay ku taal maahina tilaabso. marka way badnaayeen heeso howleedii caruurta lagu maaweeli jiray. adiga iyo janalkaaga iyo bulshada Soomaaliyeedna mar kale idin salaamaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kul caam wa antum bikhair waadna mahadsantihiin. abwaanka u hambaliye ma sha Allah. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo kugu soo wareejinaya biladaada abwaan aad baad u mahadsantahay.